الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت تاريخ ذو والحي لباتنكي بشي لبات سندي لبادا كون يلا بي لبات ما أنت عد كيو waxaan rabaa inaan hal ilaahdo halkaas aan leeyahayna waxay tahay waxa la yiraahdo damaaciga gumaystuhu sababta uu ku damaacinaya maxay tahay sababtu waxay tahay kow intuu ku soo sahansaday oo ku ogaaday khayraadkaaga ayuu rabaa inuu isagu ku qabsado sida awgeed adiga ahaan waxba kuuma u falahayo dadnimo ahaan adiga waxba kuuma u falahayo macnaha gumaysiga haddaan intaa ku soo ururino waxay tahay marka hadduu ku damaaciyey adiguna bini aadan baa tahay hawsha kuu taalle ee keliyeeta waxa weeyaan inaad diidid inuu ku gumaysto weeyaan maxaan rabnaa marka waayo aragnimadii aynu ka soo dhaxalay muddadii 100 sano ee ugu dambeysay Soomaalida ogaadeenya dadka qaarkii u yaqaanaan Soomaali galbeed muddadii dheereyd ee 100 sano ugu dambeysay ahaa waxa u soo socday dagaalo taxana ahaa oo iskiga caabinayeen gumaysiga midowga Itoobiya waxay lahaayeen walaalo ay kaashadaan sida Soomaali markii dawladda ahayd way ka qayb qaadatay u heelisay balse optionkooda siyaasadeed ayaa waxa iswaafaqi waayay barnaamijkoodii military Soomaaliya ma ina madax banaanin marka laftigeedu Soomaalida xukuumaddu gacantay ku haysay jabhadii dagaalamay gacantay ku haysay haddii madax banaan lahaayeen horumar bay gaadhin halkaana waxa weeyaan waa dhaliisha ay Soomaali ku yeelan karto halgamadii kii ugu dambeeyay WSLF oo kale aan ka gudbo marka meesha aan soo socdaa waxay tahay marka waxaad moodaa muddadii 3 sano ugu dambeysay laga soo bilaabo 2018 waxa yar qulub iyo jahawareer ku dhacay marka waa nidaamkii halgankii saxda ahaa ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya kaasaa laga maarmaana marka inay boardka laga jafo oo dib loo saxo kaasaa laga maarmaanimada uu yahay ayaa waxaa jira marka qodobka aan rabo marka inaan u soo noqdo waxay tahay waxaa jira muddadii 3 sano ugu dambeysay waxaa bilowday wax la yiraahdo social media oo si sahlan gaar ahaan qolyaha qurba joogta ama dibadda u qaxay waxay helayaan internetyo waxay sameeysanayaan marka wax la yiraahdo social media ay madax banaan yihiin oo cid waliba ay wax iskaga hadlayso oo waxay doonto u soo gudbinayso waxaa jira marka social media wuxuu noqday marka aalad markii shakhsigu uu horumar sameeyo sida YouTube-ka hadduu tira fara badan oo like iyo subscribe waxyaabo fara badan hadduu sameeyo ama Facebook nidaamka wuxuu isku bedelay financial economy uu isku bedelay sida awgeed waxay noqotay in loo kala cararo in markii koobaad laga sameeyo social media horumar marka tii waxa markay barbar socda iyadana in shirar lagu qabanayo dibadaha kaba soo qaad marka meelaha ugu fara badan ee shirarku ka dhacayaan waxaad moodaa marka inuu soo baxay barnaamij feeg oo kii xaq ahaa barbar socda marka gumaysiguna kaasuu maal gelinaya waxaa jira oo kale iyaduna inay soo baxeen hogaamiyaal isku sheegayo ruuxi waxa soo baxo kala arrimo bulsho oo feeg oo barbar socda kii xaq ahaa waxa ugu dambeeyay Maid Valley ka eega la sii wado waxaan ka wadaa shirarka lagu qabanayo Mareykanka kii ugu dambeeyay waxa la leeyahay dhinac markii laga eego kacdoon ama dareen dhibaatooyinka gumaysiga BB nidaamkan abi uu hadda hogaaminayo ee madamarka ee Christianity ee ugu dambeeyay iyo nidaamkii TPLF EPRDF oo labadooda laba gumaysi oo xarfaha oo loo kala bedelay ayaa waxaad moodaa kan eega ugu dambeeya BB ayaa kolba waxa la leeyahay marka
waxaa soo baxay garab sixitaan oo BB ah, waxaa soo baxay garab oona lefa, waxaa soo baxay qorshahaasa waxaad moodaa baryahan inay isku arkaan inay yihiin halgan Soomaali xuquuqdooda iyo halgankeeda raadinaya isku arkaan. sida awgeed haddaan in yar ka soo qaato mid maxaa ugu dambeeyay shirkii eejidan ugu dambeeyay Mareykanka dhacay shakhsiyaad ka hadlayay hadalladooda markaad u sii fiirsatid waxay tahay inay halgankii xaq ahaa ee hubaysnaa ayna ka mid ahayn, ayna taageersanayn muujinayeen iyagoo dhaliilahay halgankii hubaysnaa. aqoon-yahano fara badan oo fikradooda celcelinayay ayaa waxay soo gudbinayeen oo cadaysteen oo iyagu iska dimuqraati furayeen in la lahaa war halgankii hubaysnaa ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ka soo qayb qaata. waa kuwa intii la weydiiyay qaaraanka la lahaa kaalinka halgankaas hubaysnaa ka qayb qaata ayaa maantana waxay iska dhaadhicinayaan in ay fikir iyo kacdoon ay la yimaadeen maanta ay ku xoreynayaan. waxaa ku dhex jiray oo kaleeto nidaamkii in ilay ugu dambeeyay in ogeyn wuxuu ahaa kuwa sidoodii u kabanaya oo sidoodii macna isay fikirkii in ilay xambaarsanaaba laftiisu ka hadlayay. marka kuwaasi waxaan dhihi karaa ma matalaan halganka xaqa ah ee Soomaalida ogaadeenaya. waxaa matala jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya. jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenayna waxa laga maarmaana inay boardka iska jarto oo 3 sano ugu dambeysay qulubkii jahwareerka ku jirtay iska sacdo. sida awgeed halka waara ee nidaam ama gumaysi ku soo doontay waa inuu xanuunsado weey. hadda waxaad moodaa dagaaladii qaboobaa ee dunida inuu dib u soo noqdeen. halka waara waa markii u dambeysay waxa weeyaan waa inaad hubaysantahay, waa inaad gumaysiga xanuunjisaa. markaad xanuunjisid ayuu ku deenayaa. sida awgeed waxaan anigu u arkaa in boardka la iska shafo oo la iska indhatirin gumaysiga madowga Itoobiya ilaa la xanuunjiyo oo la dhibaateeyo. ma ogolaanaya afti ummadan laga qaado ama aad xorriyad gaadhid oo aad iska isku xorey. sida awgeed waa in la xoojiyaa barnaamijka qoriga iyo qalinka. jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenayna boardka iska jafto 3 sano ugu filan jahwareer intaas leeg. gumaysiga madowga Itoobiya ha dhaco, Soomaalida ogaadeenaya ha xorowdo. وانا واحد سعاد واسم محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.